waa madadaaliye waa qof maankiisa ka keensaday hab cusub oo uu sheego in uu dadka kaga saaro muruqa. cabduqaadir axmed mayow oo loo yaqaano sanka aboola waxa uu ku nool yahay magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle. waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu caansan magaalada, shaqadiisuna waa faryaamo. laakiin marka laga soo tago waxa uu ku caanbaxay inuu shacabka reer jowhar u sameeyo hab uu aaminsan yahay inuu muruqa kaga saarayo. sanka aboola arintaasi waxaa u dheer inuu yahay nin majaajiliiste ah, isla markaana xilliyada uu shaqada hayo dadka ka qosliya iyagoo u soo tuurta halka uu hawsha ka hayo. ilmaha waa haylaaya ruuxii waa ku dhawanaya abu waa ka baxsanaya laakiin feer la cuni maxaa laga fiiqana feer nin fiiqle wax la cuni ma macnaa laf leeyo taagantahay. arrintan ayuuna ku guda jiraa ku dhawaad 20 sano sida uu ii sheegay, waana shaqada uu inta ugu badan ku soo dabaray qoyskiisa maadaama dadka ay jecel yihiin waxay u gartaana uu ka qaato. cabduqaadir mayow axmed sanka aboola waa kan isagoo iiga sheekaynaya taariikh nololeedkiisa iyo jimicsiga uu dadku u sameeyo magaciisa iyo waxyaabaha uu ka faa'iido. aniga markii hore alxamdulillaah hadaba nabad waa iska jirtaa, laakiin nabad oo waxa iska jirto oo qulub waqtigii oo siyaad bari joogi shaqadayga waxay ahayd faryaame ahayd burus minshaar isaga feere aan iska dawato 3 shay ilaahay markuu darnaade burburkan siis u dhacay oo siyaad bari baladka oo gobolka Soomaaliya asaga baxay 91 baxayaan umaleynaa intii ka soo bacdii abaytanaan gacanta gashti macnaa ilaahana alxamdulillaah ii suurta gali alxamdulillaah inuu ku shaqeysto cunuga lama jirka ay yaqaan gobolka hadii soo gasho tiraad warsanka aboola yaqaan ama sanka badar waa lagu soo wadaa. laakiin cabduqaadir mayow axmed ma giitiraad waa ku dhumayba gobolka wallahi cid ku keenaysa male magaceeyo saddexad ma haayaan umada magaceeyo naanees ay wataan ay ku shaqeystaan macnaa waxa la yiraahdaa muruq bixis ma la dhahay waxa fiish tarbiya macnaa waxa la yiraahdaa almiintooda macnaa dadka oo neerfa ka soo kadkaduuta iyo dadka oo gacmo leeleemaha ka qaba iyo dadka oo feela iga soo boodi ku dhaay meelahaas ilaahay ii suurta gali marka taasaan iskaga shaqeystaa oo shaqo kale ba mabareeyo cunug dad ma dhigo cunuga jiri oo lama jirka ay yaqaano alxamdulillaah qori maqaati qorigeega waa kan abo qorigeega waa ta abayde aan baan ku sheegay kan koode yaambo iyo masaar saddexdaas shay aan beera u qaatay beledkan ninkaan u soo qaatay kan waxa uu soo qaatay bini'aadina iska soo deeyaa dhaayo kan buriga cusbi cajinas ku watay ku fiirebo. sanka aboola marka laga soo tago jimicsiga uu dadka u sameeyo waxaa jiro hadallo uu ku caanbaxay. abo halu saatay abo 4 jiro ay hayso 4 jiro abo hadii wurdu wax ma arkay hadii darka wax kale ma cuni kari markii socdo luway horeys ana soo jeedan kaadey baayri daawada saarway inta turkiga la diri turkiga. kani waa cabduqaadir mayow axmed oo loo yaqaano sanka aboola. waxa uu caan ka yahay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle, isagoona ku caan baxay hab uu isagu aaminsan yahay inuu dadka ama shacabka muruqa kaga saarayo. waana sidoo kale waxa uu raacaa intaas inuu yahay nin maadista ah oo dadka ka qosliya. safiya ismaan cabdulle, Shabeelle TV, magaalada jowhar.